in waxa weeye lugaa layga jajabiyo qori dabadii la dhaco dhuuma wax layga mudo qol duqaan laygu tuuro dhibtayga soo gaadhay 5 bilood 12 sano halkan ku jiray oo aan xukuumadda Soomaaliland iyo siyaasiyiinta isaysanay waxa igaga dhib badan oo igaga xurmad daran oo igaga tacaddi badan oo igaga xanuun badan oo neerfaha iyo dhinacyada baan saaka uga fadhiya oo aan waxa weeye xataa dhakhtaru tay kari waayay mataga socda ee aanan afka wax u saaraynin waa dhibta 12 sano ee aan halganka ku soo jiray hal tacab baan raadinayay wixii khayriya iyo aakhira mooyaane horta ma geedaa inaan ka dagaalamo waxaan filayaa waqtiga raagay inuu sababay garxajis iyo oromaba waqtiga faraha badan lee ka raagay kursiga iyo farabadnidu inay aragtida iyada u sababtay laakiin oromo way mudaharaadeen oo waxa weeye qalalaasay sameeyeen fawday sameeyeen laba nin oo ilmaadeeraan masalaha ka wada toosnayo nin wuxuu yiri warabti aan dhisaya ninna wuxuu yiri anna waxaan idhi war adeeraynu dhisayna kii abtiye dhisayna taariikhda SNM baa meel looga baneeyay kii adeera dhisay 12 sano adeera dhisayayna jeelka iyo jajabin baa meel looga baneeyay dhibta xukuumadda iyo qaybaheeda kala duwan ayay iga imaneysay qaar la ogiyay iyo qaar aan iyagu isogeyn magaca dhalinyarada ee tishuushka laga gelinayo waxay ahayd tawgu qaalisan ee ugu qiimaha badan leh ee tacabkaygiya history repeats itself taariikhdiyada dib isu soo celisa daawadayaal halkan waxaan maanta kula kulanay isla markaana waraysi gaar ah aan kula yeelan doonaa Liibaan Xuseen Al-Cadaala oo si weyn uga taqaan guud ahaan baraha bulshada Soomaaliland oo maalmihii u dambeysay lagu xiray magaalada Hargeysa balse hadda xorriyadiisa haysta aynu halkan kula yeelan doonaa waraysi isla markaana ku qaban doonaa shir saxaafadeed oo soo dhaweynaa marka hore Liibaan Al-Cadaala shacab wad mahadsan tahay runtii waxaan jeclaa inaan dowladda ka yiraahdo oo dadweynuhu ay aad u weydiinayaan hase ahaatee tafaasiirta ay dadweynuhu rabaan uma soo fadhiisan goobta tan waxaan soo fadhiistay halka kan in aan dhowr erey ka yiraahdo xaaladda guud iyo intii aan dalka joogay iyo jahada mustaqbalka ee aan waxa weeye dhalinyarada iyo ummadaba aan ku waaninayo mid waa midoo 5 bilood ugu dambeysay dalka joogay dhibtiiga soo gaadhay dalka iyo intii aan fadhiyay ayniga iyo cimriga aan ahay iyo garka cadaaday maan arag runtii dhibaato tacaddi jalaafooyin mu'amaraad dhib aad iyo aad u fara badan ayay iga soo gaadhay oo tii ugu dambeysay xaalad caafimaad baa ahayd iyo xabsi maynay filan waa igu noqotay mise inay adduunyada wax walba ka dhacaan dee wixii horta filan waa kugu noqdaa waa filan waaye wax kasta adduunyada way ka dhacaan iyadoo taasi taa tahay 12 sano dagaalka aan ku jiray wuxuu ahaa dagaal aan ka dagaalamayo ereyga ah kursiga ma geydaan ajandahaygu wuxuu ahaa inaan reer dhiso oo sida reer waliba dan iyo duco iyo garadag iyo shirki cigaal lagu dhisayba in aan waxa weeye beelweynta garxajis qodobka ka jabiyo naftayda iyo nafahoodaba maadaama aanu muwaadiniin 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland degta 12 sano ee aan waxa weeye mid xisbiyahan iyo mid idaacadii aan garanaysaanba oo marmarka qaarkood dariiqyadu ay adkaayeen waxa aan orodkeed iyo dadaalkeeda ugu jiray war kursiga ma geydaan iyo waan geynaa taasa waxa weeye dariiqod xale iyo mid kaarbad laba nala martay dagaalkayguna kaas ku wajahnaa sida aan idin sheegay markii hadafka aan ka midho dhaliyay runtii waxaan islahaa maanta waa maalin aad nasanayso oo samafalkii khayraadkii hore baad uga shaqeyn jirtay ka shaqeeyo goboladii baan bilaabay inaan weydiiyo dhibaatooyinka wixii anigu aan u qaban karo wixii ummadda islaamka loo weydiin karo iyo wixii ay xukuumadda ku tari kartaba oo samafal aan ahaa samafalka horaan u wadi jiray oo in ka badan milyan iyo dheeraad ayaan ku maalgeliyay aniga aan xildhibaan ahayn caaqil loo calaamad saaray ahayn siyaasi ahayn gudoomiye xisbi ahayn madaxweynena aan ahayn ayaan waxa weeye xilli xoolatoona kaga doonayno saaka guri kiraa kaga jira iyo gaadhida inaan soo qaatay in ummadda danyarta wax la taro meelaan biyo lahayn oo bacaada ayaan biyo ka soo saaray
magaalooyin duufaana ku dhuftay ayaan waxa weeye dib u hagaajinayay. danyar baan anoon daar lahayn daara u dhisaayey. curyaan baan gaari u iibinayay anoon gaari lahayn. kuwa tahriibtaan ka saarayay. dhalinyaraan jaamacado ilaa master ka saarayay. qaar baan diyaarada khaasa kusoo qaadayo magaalooyin kale ka keenayay gaga cidlaa fadhiya. uma aaba yeelaynin ummadaa danyartaa. taasina ma ahayn midaan weji iyo adduun midna ku raadinaye dee waxay ahayd waajibna saaran in waxa weeye ehliyada iyo qaraabada iyo ummadaba laga warhayo. 12 sano ee aan halganka kusoo jiray hal tacab baan raadinayay wixii khayriya iyo aakhira mooyaane. horta ma geedaa inaan ka dagaalamo. midda kalena ilaahay wuxuu leeyahay wactasimu bihablillahi jamiican wala tafarraqu. ilaahay tafaraaruqa ma jecle haddii cid gaar gooni loo faquuqo cidda inaad isku soo ururiso oo ma geedaana aan ku jabiyo. tacabka iigu weyn iyo hantida iigu qaalisan waxay ahayd G36. magaca dhalinyarada ee tishuushka laga gelinayo waxay ahayd ta ugu qaalisan ee ugu qiimaha badan leh ee tacabkaygiya. qofka u haysta maal la dhaqo inay tacabtay waxaan leeyahay wad la weyd. qofka xil iyo xoolo iyo xurmo u haysta waxa weeye magaca iyo midnimada iyo wadajirka iyadana uu la waayay. magacaasi waxa weeye magac nagu qaaliya waa midnimo waa wadajir waa diintuna fartay anagoo farayna waxa weeye ummadda reer Soomaaliland oo dhan mid ahaato. haddana waxa weeye nabigu wuxuu carabana ka dhashay de ciladu ma ogoli. sidaa daraadeed magacani waa magac igu qaaliya oo qiimo weyn igu fadhiya tacab fara badan igu fadhiya. waa magac antimaha ku waayay waa magac garhka igu cadaystay dadka kama cimri weyni. waa magac aan habeen iyo maalin soo jeeday in kursiga ma geydaan iyo magacaasiba. marka horta waxaan leeyahay dhalinyaroy inoo ilaaliya hadda media ku jirtaan iyo hadda banaan ku jirtaan. siyaasaddu waa waqti laakiin midnimada iyo wadajirku waa waqti dheer waa wada noolaansho. aakhirana garxadis baynu ku tegaynaa adduunyadana halkan aynu ku fadhiyaynaa iyadoo ummadda Soomaaliland habeenun waxa weeye kala xigta oo ummadda reer Soomaaliland oo dhan walaalatay. haddana waxa weeye wada dhalashadii ehelnimadii iyo walaalnimadu waxa weeye waa qodob diiniya dastuuriya wada dhalasho mashruuc maaha NGO maaha quraarad jabayso meel taalla maaha urur la isu keenay maaha xulafo siyaasadeed maaha waa wada dhalasho. aragtida ku salaysan dhibta ay soo gaadhay horta dhibta ma filanaynin. dhibta xukuumadda iyo qaybaheeda kala duwan ayay iga imanaysay. qaar la ogiyay iyo qaar aan iyagu isogeyn waxa weeye qaar direct iyo qaar indirect intaba way iga imanaysay. hase ahaatee 12 sano waxaan ku dagaalamayaa inaan xil iyo xoolo iyo tahdiidaad iyo dhib iyo cid godoba tirsanaysa intaba loo ordayo. waxaan u ordayay sidaan idin sheegay kursiga ma geydaan iyo midnimada beesha aan anigu ka soo jeedo. taa darteed baan arintaa u liqay. jaamicii aan maqlayseen ana waxa weeye dhabarka ku qaadanaya oo liqaya oo la talaabsanaya. tay Cabdi Gaabuush ana la talaabsanaya oo liqaya oo wadada la maraya. aragtida ah ee qaadan waagay Soomaaliland ay soo qaraacayso iyo garxajis weyne iyo isaaq weyneba ee oranaysa war ninkii 12 sano u dagaalamaya jeel galiyo la soo jajabiyeen. iyadana de waxa weeye ana xambaaranaya oo qaadanaya. dhibi kuma jirto waxa se ka xun. taariikhdu iyada dib isu soo celiso oo qoladan cadaankii waxay yiraahdaan history repeats itself. taariikhdu iyada dib isu soo celisa. qofka sugaya liibaan xukuumaddu dhisay inuu dubinteeda qayb ka qaato waa maya. sababtaasi waxa weeye 12 sano waxaan ku dagaalamayay ma geydaan. saakana qofka sugaya inaan dagaal galo waxba ma maamuli kartaan ayaa meesha taala. kii ka horeeyay 6 bilood baa kabaha lagaga baxay oo had cad waxa weeye cidlada ku dhaqaaqay. aragtidaasina waxay ahayd mid aynu inagu qayb ka ahayn. aragtida odhanaysa waa beesha 12 sano u dagaalamaysay iyo madaxweynihiina waxaan leeyahay iyadana qodobkaasaynu uga tanaasulaynaa. qodobkaasaynu ku xambaaranaynaa. qodobkaasaynu wadada ku maraynaa. qodobkaas madaxweynaha waa madaxweynahaygii waa kaynu waxa weeye aan ku jabinayay ma geydaan. waa madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland waa madaxweynihii ummadda waana madaxweynihii liibaan. aragtida meesha taala waxa weeye aragtida oranaysa war liibaan waa lagu xidhay oo jugaa ku soo gaadhay. horta de wax kasta waan filanayay taamaan filanayno qaadan waa bay igu noqoto.
in waxa weeye lugaa layga jajabiyo qori dabadii layla dhaco dhuumaa wax laygaga mudo qol dukhaan laygu tuuro dadtiin bi iyo xanuunadii qaba ay waxa weeye aan habeeno badan meesha la fadhiyo arrintaasi u qaadan waaba igu noqoto waxaase kasii xumaanaysa qolada oramadii jawaahir maxamed bay jeelka ku rideen waxaana filayaa waqtiga raagay inuu sababay garxajis iyo oromaba waqtigaa faraha badan lee ka raagay kursiga iyo farabadnidu inay aragtida iyada u sababtay laakiin oromo way mudaharaadeen oo waxa weeye qalalaasay sameeyeen oo fawday sameeyeen inaynu hal mid kaga caqli badnaanaan ujeedaa oo aragtidaasi ay noqoto war oromo aynu kaga duwanaano inaynaan dowladdii dib u duminin mudaharaadkii iyo qalalaasihii ay samaysay abi kursiga ha fadhiisto maxamed jawaahirna jeelka lagu tuure inta aynu oromo kaga duwanaano oo iyaynaan waxa weeye taariikhdii shalay taallay maantana lafteedii iyada aynaan ku celinin waxaa markaa aragtida aan idin leeyahay walaalayaal dowladda mandatekeediiba haysataa madaxweynuhu waa madaxweynaheena jamhuuriyadda somaliland naftayda iyo nafihiinaba waxaan idinkala dardaarmaya qof kastoo tabasho jidaa inuu qaato war waxba ma maamuli kartaan waa qodob idin hor yaalla waa qodobkii hore 6 bilood waxa weeye wadada kaga tagtay dhib meel kale uga timaado mooyaane tujiiteed sigis uga timaada naftayda iyo nafihiinaba waan ka xaraantimaynaya war ficilkii aanu shalay ku dagaalamayna saakana leenay taa ku daaya oo waxa weeye kaga leexda waa inagu gunnimo waa inagu doqonnimo waa inagu xumaan macnaheedu ma aha liibaan dhibi ma soo gaadhin waanigaa idin le 35 sano oo Somaliland jirto dhibta iga soo gaadhay 5 bilood 12 sano halkan ku jiray oo aan xukuumadaha Somaliland iyo siyaasiyiinta isaysanay waxa igaga dhib badan oo igaga xurmad daran oo igaga tacaddi badan oo igaga xanuun badan oo neerfaha iyo dhinacyada baan saaka uga fadhiya oo aan waxa weeye xataa dhakhtar u tagi kari waayay mataga socda ee aanan afka wax u saaraynin waa dhibtaa dad badan iyagu waxay weydiinayaan 12 sano iyo liibaanow iyo qaadan waa Soomaaliland Nabi Maxamed maamul goboleedada dariska asxaabta iyo shacbiga Somaliland iyo isaaq weynaba war liibaanow sidan ku dhacda ayada fara badan suuqa iska wareegayna way jiraan oo waaba iska caadiyo laba nin oo ilmaadeeraan masallaha ka wada toosnayo nin wuxuu yiri warabtiyaan dhisaya ninna wuxuu yiri anna waxaan idhi war adeeraynu dhisayna kii abtiye dhisayna taariikhdii SNM baa meel looga banay kii adeera dhisay 12 sano adeera dhisayayna jeelka iyo jajabin baa meel looga banay marka waxa soo dhan waxaynu ku wada liqaynaa ma geydaan iyo ma maamuli kartaan laakiin wax ka weyn baa yaala hamoodina inay dib yaray 12 sano inuu qofso habeenii maalin soo jeedo oo uu si dadbani si dahan baa u shaqeeyo laakiin dhibtan ka cuslayd physically iyo mentally iyo maskaxiyan ba u qaadan waaga waxa ka sii dhib badan waxa ma maamuli kartaan iyo inaynu fawdadii inagu number 1 iyo qayb weyn ka ahaano qofkii aaminsan wuxuu dhisay buu liibaan dib u duminaya waxaan u duminay shalay waxaan u dhisayay ma geydaan waxaan reerka u mideynayo walaaltinimo iyo wada jir iyo ma geydaan inay iska maydhaan saakana waxa aan u xambaaranaya culays kasta oo aan ula lugaynaya in aynaan idinku celinayay waxba maamuli kartaa iyo way fashilanta hadday fashilantay waa tacabkeeni baa fashilmay kii liibaan baa fashilmay kiini baa fashilmay magaciini baa fashilmay midnimada beelweynta garxajisna waa muqaddas dalkan aan ku noolahay Turkiga baa maamuleysay Talyaaniga Ingiriis baa isku qabsaday Soomaali weyn baa timi Somaliland baa laga dhawaaqay isbedelka waa arkaysaa laakiin wada dhalashada dhiigga iyo dhacaanku mid isbedelaya maaha iyada muqaddasa marka garxajisnimadu waa shay muqaddasa oo walaaltinimo oo wada jira shanta hooyo wada dhashay guri ku jira wax isku qabaan ama waxa weeye ka qalqaaliga isaga jira Saciid iyo Daawud labadaba qalqaalaha ku jira dad rabshada wadayaalaha ku jira dad waxa weeye dib wadi kara ku jira dhalinyaro wadada laga duwaya ku jiri karta inta badan iyo baaqiga beeshu weeye beelaan dib wadayaal laga helayna ma jirto marka walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay war qofkii wax iga tirsanayo cafiye masaamax kii aad isla liibaan bad xogeysatay anigu nin cafis bixiya baanay shacbiga jamhuuriyadda Somaliland dhibtii noo timaada waa mid qarannimadeena iyo wada jirkeena iyo dawladnimadeena dhaawac u keenaya wixii ka sii hooseeyana kaba sii qadhaad
marka cid kasta oo cabasho iyo waxa weeye waxay ka gaareen shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyagana waxaan leeyahay cafis iyo musaamax